intaasba ku makanin lahayd ku siin lahayd ku fududayn lahayd buu markuu idin soo saaray idinku qalabeeyey haddana wuxuu idin yeelay maqal wuxuu idin yeelay aragti indhaad wax ku aragtaan dhega aad wax ku maqashaan dhegaha waxa ay arkaan iyo dhaguhu waxay maqlaan iyo indhuhu waxay arkaan waxaa loo baahan yahay khasnadii la gelin lahaa qalbigu ilaahay idin yeelay bakhaarkaa weyn ayuu ilaahay idiin sameeyey oo halkaasee wax walboo ishu aragto uu galayaa wax walboo dhegtu maqasho uu galayaa nimcadaasoo idil oo aynan karneen ilaahay wuxuu leeyahay lacallakum tashkuruun in aad ku shukrisaan bimacnaa aada garataan qiimiga aada garataan inuu ilaahay idin siiyey markaad u aqoonsataanna aada dhahdaan alxamdu lilah walaalayaal ilaahay markuu intaa inoo yeelay dabadeed ilaahay wuxuu leeyahay wakti buu markana siiyey waktiga oben ma aha la socda dhalinyaro cimrigan ma furna waktigan wakti furan oo weligii jiraaya ma aha waktigu waa xadidan yahay allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba waktigeena inuu xadidan yahay waxaa ka horeeya dhalinyaronimadan wakti daciif aanu nahay waxaa ka dambeeya wakti daciif aanu nahay waktigeenu waa xadidan yahay 20 sane ugu horeeya ilaahay wuxuu idinka abuuray dacfi wuxuu idinka abuuray taagdari wax ma qabsan kartaa inta ay yartihiin waxaad u baahan tihiin waalid baad u baahan tihiin dad idinkaabaad u baahan tihiin in lidin xoojiyaad u baahan tihiin xagga caqliga iyo xagga jirkaba allahu alladii khalaqakum min dacfin wa ilaa 20 sano 20 ilaa 40 sano waa inta la xoogan yahay 40 sano wax ka dambeeyana qofkii wuu soo ururayaa qofkii wuu soo daciifayaa qofkii dhegihii wax ma ka maqli karo indhihii aragtidu way soo laabanayaan qalbigii wuu yaraanayaa xubnihii waa soo daciifayaan waa godanayaa waktigeena marka waa maxay haddii in horen ay tahay dacfi in dambena dacfi ay tahay waktigeenu waa 20 sano ee u dhaxaysa 20 ilaa iyo 40 sano 40ka waxyar un baa noo raacaya waktigaa isaga ah ayaa marka ilaahay rasuulku waatan uu leeyahay maalinka qiyaamaha la iska xisaabinaya can cumurihi fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah qofna cagihiisa kama qaadayo saaxada qiyaamaha idinku dee waxaad maqashaan saaxad qiyaama waxaad u malaysaan yani hool halkaan oo la imanayo miisaan halkaan yaalo oo la isxisaabinayo maalinkaas maalin aada u adag weeyaan rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waa maalin qof walba uu u baahanayo xasanaad in uu helo qof walba uu u baahanayo waa maalin dhalinyaro maalinka qadarkiisa qur-aanku uu ku tilmaamay 50,000 sana 50,000 oo sano saaxada la joogaa waa saaxo aada u dhib badan midna ogaada adduunka wax walboo lagu sheego oo aakhiro lidinkaga sheego way ka duwan tahay sidaa ha u suuraysanina aakhiro wax walboo jira cadaab iyo naciimba waa waxaanay dheguhu maqlin indhuhu arkin qalbi bani aadana aanu ku soo dhicin dhan walbo ay ahaato 50,000 sana ma aha 50,000 maanta dee adduunka aanu arkeena waa 50,000 oo sano oo qiyaamo ah saaxadu waa bannaan tahay buura ma leh geeda ma leh bahola ma leh meel lagu dhunto ma leh saaxadu waa bannaan tahay waxa weeyaan saaxada iyada ah waxaa ku kulmaya jinnigii iyo insigii iyo bahaa-imtii xasharaadkii cayaya ay shay ilaahay uu abuuray oo dhan baa halkaa imanaya dadku waa wada qaqaawan yihiin maalinkaa iyada ah lismana eegayo qof walbaa camalkiisii adduunka uu samaynayay ayay u gaaraysaa qoraxdu yani dhididka qoraxdu ay keenaysaa qoraxda waxaa laysu keenayaa halkaa
يعني أنا هالكاسم كنت المانا لكن صحابي حديث كورينا وحوليه رسولك ميل أيا لسكين يا بوليه والله ما قرنا يا بوليه وانك رسولك أفكيس كما قال صلى الله عليه وسلم ميلك وحق رسولك وجدي ما كان ما ميلكي مسافة يقولك أهيد با مسوا ميلك يرى هوينك كو عندك وشان فيري خلاف كل حكي تاجين ياهي ما ميلكي لغها متركا مسوا ميلكي يرى هوينك كو عندك ولنيين وقرحضا قرحضنا ما قرحض أدونك وقرحض آخره للصعدة halkaas la isu keenaya dhididka wuxuu dadku uga daadanaya maalinka isaga wuxuu uga daadanaya qof walba adduunka markii uu joogay sida amalkiisu ahaa qaar ba gomadaha ayuu u gaaraya dhididka qaar jilbaha qaar xudunta qaar halkaas u gaaraya qaar ba rasuulku wuxuu leeyahay dhaguhu u gaaraya halkaas uu xakameynaya yaa la fududeysan dhalinyaro maalinka wallahi waa maalin aad iyo aad rahiib u ah waa maalin marka laga sheekeynaya sheekadiisi aayadii ka sheekeynaya rasuulkeena suuban timihiisu ay cireysteen weeyaan qofka aqli ilaahay wuxuu nagu siiyay oo qalbigu noogu geliyay waxa weeyaan in aan ku tadabburno dhibka anaga haystaa waxa weeyaan quraanka al-baqara ka soo bilaabeena barbinaasan geynayna wax uu naga bedelaya haba yaraatee malaha shay walba culimadu tiraado saxiix ah waa in si serious oo dhaba aad u qaadataan maalinka isaga wax badbaadaya waa yar yahay waa maalinka nabiyullaahi aadam ugu horeeyo ilaa nabiyullaahi ciisa alayhi asalaam qof walba uu leeyahay nafsi nafsi anigu wax ma qaban karahayo yaa qabanaya rasuulkeena suuban ana li ayuu leeyahay markaasuu noo andacoonaya oo uu leeyahay ummati ummati waqtigan aad arkaysaan maalinka isaga qofna يعني وقت قال الجوع عريري أي زحمة قفنا هالكا كما تجيو لويس كما قاضيو إلى جوابها سؤالها عن أفرت وبحيو ديار موتين دالين يرو 20 سنة 60 سنة 40 سنة 60 سنة أو أدونك أتكون وليت عمرك أدوك مليت إلهي باكسيي لعجها أد هاي ستي وحول بوقيمي لو أكتادي هلا هدي أد بحسيت ساعد اسكدا في الدقيقة كم يبسن كريسد مليونير الدون كان مركي سكراضيان او نفسد كبه حيسا حوله هو دن اسكو فران لها هلي ميسان دقيقة كميدا والله نيدن هلينين الهينا دقيقة اسكدا في 7 سنة 6 الا بقلبو بلاش كوسيي عقلي الهي وحنويه لعلكم تشكرون ان تفيرسان دب اسوق لابو حبنها اد اركيسان إلهي إذن سيي عافمات كان إلهي إذن سيي عقلك عن حولها وقدوا أنها إلهي إن سيي يوليبوا وقت عن درك بدنا إلهي نسيي محلو باهن ياهي إنكو عبادي سنة قلبي ينوني أنو كسو دقدقين مرنا بعبادة مركا لشيغو دوب إن لحرتو ما أركتا خميس كي مساجد كون لفضيو الله كودو مرنا يعني قلبي ينو كسو دقين دينتين السلا وكوين تاي دينتين الدون كي آخر انتو بواجمعنا يسا الدنيا مزرعة للآخرة إنا بيرتا لغا ربا إنا كسيحة معها مساجدكو إنا فردد معها قبل قريقين إنا جوبت معها إن لصوبحو أو لشقيستو علمي لبرتو الدون كو وحا كدعي لاغو ليسعاويو إن بدن الدون كان عافمات إنا أبورتد بالو باهية والله ليال وقت يعني dhalinyardeena inta badan inta aan arkay waxa weeyaan iyagoo faraxsan ayay bixiyaan shaygan qiimiga badan oo daqiiqadiisu ka qaalisan tahay adduunka iyo waxa saaran runtii wallahi anoona mujaamaleynaynin annagoo faraxsan oo waliba aanan ogeyn ayaan bixinaa biduuni muqaabil laakiin ma ogsoonin in daqiiqad walbo aan bixino annagoo faraxsan oo ay waliba aynaan ogeyn ay noo sii dhaweynayso maxay qabrigii iyo aakhiro keenay ogsoon maanta fadhigaan aan fadhino inta ma saacadii aynu soo galnay ilaa ay saacada aan ka baxeena daqiiqad walba inaan u sii dhawaanayna qabrigii yaa ogsoon hadduu ogsoon yahay qofkan daqiiqadan uu leeyahay waa soo berdarayna meelahan soo aariyeysana meelahaasaan kusoo gaxweyna banaankaasaan fariisanaya uu leeyahay hadduu ogsoon yahay intaas cimrigiisa iyo jirkiisa inay ka go-an tahay miyuu tegi lahaa maya ma ogsoona teeda kale rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayha ilaawina ninka odaga ahaa yaan ilaawin ya malakul mowt yaan ilaawin isagu nama halmaansana
annaga yaynaan halmaamin. waxaan la yaabay qof la raadsanaya oo lagu daba jiro oo meeshuu cagdhigaba la eegaya oo haddana iska aanan waxba ogeyn, iska socda, iska hadaaqaaya. qof 24 saac afkiisii aan kontarooleynin, aan camalkiisii iyo gacmihiisii aan uusan kontarooleynin, lugtiisa halka u dhigay uusan kontarooleynin, halkaana la saaran yahay, malaa'igtu saaran tahay. walaalayaal, xubnihii badnaa aynu soo sheegnay iyo 360 xubnood ee jirkeenna, intuba ilaahay wuxuu noo siiyey inaan ku intifaacno. waxa maanta halkaan idin keenay ee lugaha aad isu daba dhigteen, ya waxa weeyaan iraado ilaahay, awood ilaahay weeyaan. awooddiina kuma aydan imaanin. inaad ku shukrisaan oo weliba aad eegtaan gabadha facaaga ah ama wiilka facaaga ah ee maanta isbitaalka jiifa oo aanan dhaqaaqi karin, jecel in uu mar un gacantiisaas awood intay u yeelato uu wax ku qabsado, wejiga uu ku dhaqdo, uu nijaasada isaga dhaqo, uu wax ku cuno. gacantii ma dhaqaaqi karo, afka wax loo gelin, anfaleed baa ku suran. annaga nimcadaanu ilaahayna siiyey, nimcadan aad arkaysaan ee la leeyahay dhagaha wax ku maqla, indhaha wax ku arka, afkaa wax ku cuna, lugaha ku socda, jirkii waa ka caqliga ku fikir uu leeyahay. intaas waa intii manaafacaadda adduunka. laakiin walaalayaal, waxaad ogaataan inaad tihiin dad qiimi badan. intaasoo keliya xubnaha laydinma siinin, intaana ku samaysta. ogaadana waxay idinka yihiin ilaaliyaal, bodyguard ayay idinka yihiin. gabadheennay ogsoon maanta ama wiilkeennay ogsoon, gacantaa uu wax ku cunaayo, ee uu wax ku qabsanaayo, ee uu dhaqdhaqaajinaayo, in ay tahay camera ilaahay leeyahay. midkeennee awood u leh maanta cameradaa horteeda intuu istaago inuu dharka iska dhigo, inuu been sheego, inuu shay xun sameeyo? abadan, qof awood u leh ma laha. waa camerada adduunka. maxay kaa qaadi kartaa camerada? magacaaga iyo sawirkaagay faafinaysaa, wax kale ay ku geysan kartaa ma laha. laakiin ma ogsoon tahay adigoo dhan inaad tahay wada camera? gacmaha inay markhaati kaa yihiin oo ay ku ilaalinayaan. markii aad qaangaartay ee qalinku uu kugu bilowday ilaa iyo maalinka aad dhimanaysid, gacmaha aad arkaysaan ee aad ku intifaacaysaan oo aydan u aabayeelaynin, waa markhaati. waxbay duubaayaan, cameray duubaayaan. weliba muuqaal keli, maqal keli ma ahayn, waa maqal iyo muuqaale. ogaada, wallahi waa maqal iyo muuqaal. waa lisoo maalinka qiyaamaha yani waxbaa yaalla, ilaah waana fadeexaynin. teeda kale lugahaasna waa markhaati. ogaada, lugaha waa markhaati. jirkaagaa, maqaarkaagan ilaahay kugu dahaaray ee aad dhaqaysid, ee aad subkaysid, ee ma aragtaa wax walbo aad u bixisay, iyadoona waa markhaati. ilaahay wuxuu leeyahay marka qiyaamaha la tago, alyawma nakhtimu calaa afwaahihim. afkaanu xiraynaa maalinka qiyaama. qofkan inuu hadlaa la doonayaa. xagguu ka hadlaayaa? watukallimunaa aydiihim. gacmihii baa hadlaaya. maxay kula tahay gacmuhu inay sheegayaan? gacmahaaga intii aad noolee 70 sano intee meel bay soo taabteen? gacmahaaga ilaahay hana asturo, ilaahay hana asturo. waxaad u malaysaan ilaahay baa ku dhaarshay 20 sano ee waddankeena aan ka maqneen, ninka qoriga siday ee aan diin aqoonin, ehel aqoonin, islaamnimo aqoonin, ee intaa dhig daadinayay, gacmihiisu maxay sheegayaan ay kula tahay? cajiib way soo maha. marka walaalayaal, gacmaha iyo jirka waxaasoo dhan waxa weeyaan markhaati bay naga yihiin. weliba maalinka qiyaamaha markii la tago oo afkii inta la xiro gacmuhu hadlaan, lugihiina markhaati. yacni gacmuhu waxay sheegayaan wax qofkan uu ku halaagsamaayo oo ku tuurayo jahannama forever, weligii. marka qofkan in la halaaga oo jahannamo uu ku halaagsamo lama rabo, lama doonaayo ilaa markhaati, ilaa bilxuja. markaasaa la leeyahay, war waxaad sheegaysaan waa arrin waaweyn, yaa markhaati idinkaga ah? markaasay leeyihiin lugihii. watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun. lugihii baa markhaati ah. marka maxaa lagaa rabaa maanta laga bilaabo? in aad ilaalisid. maxay? gacmahaaga inaad ilaalisid. almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih. yani axaadiista aayadaha kulli waa wada naqaana aan sheegaya, laakiin tadabbur baa loo baahan yahay. in aayadaha laga fiirsada, in la kor istaaga aayadaha. qofka muslimka ah waa kan muslimiinta kale ay ka nabadgalaan. maxay? carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabadgalaan.
maxaa wacay waxaana maalinka qiyaamaha ku fadeexaynayo ku sheegaya waliba maalinkaas waa maalin loo baahan yahay maxay xasanaad badan loo baahan yahay waa maalin calaacal uusan waxba taraynin waa maalin waqtigii aad lumisay uusan ma aragtaa uu ku ciqaabayo saxaabi jaliil ah oo aan aad u jeclahay oo la yiraahdo Abdullah ibn Mas'ud ayaa daa'iman radiyallahu anhu ayaa wuxuu ka calaacali jiray waqtiga daqiiqad inay ka lunto ma aanu rabi jirin dhalinyaradeenna iyo haweenkeena waxaan rabnaa saxaabad marka laga sheekeynaya runtii saxaabada inay bartaan anaga ma lihin yani John Paul iyo Margaret waxaas ma soo qaadana tusaalana kuma waxa tusaale inoo ah qudwa xasan inoo ah inaga badbadan dhalinteena inay barato loo baahan yahay waa saxaabadeeni radwanullahi alayhim waa dadka la leeyahay ku dayda waa xidigahaas oo kale kaad ku dayataanba wuxuu idin yahay ma aragtaa ku dayasho wanaagsan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayaa runtii ninkaas nin miisaan badan ma aanu ahayn nin caata ayuu ahaa maalin buu geed fuulayay geedkii uu fuulayay ayaa lugihiisii ayaa feedmay halkaa dhudhumada ah aad bay runtii u yaryaraayeen wuuna caato ahaa saxaabadii baa markay arkeen bay ku qosqosleen lugaha dhudhuuban ee ibn Mas'ud wallahi intuu dhaartay rasuulka ayaa wuxuu yiri lugihiisaas yar midood haddii la saaro miisaanka aakhiro haddii la saaro buurta Uhud way ka culays badan tahay qofka maxaa lagu qiimeeyaa qofka waxaa lagu qiimeeyaa camalka lagu qiimeeyaa iyo iimaanka lagu qiimeeyaa laguma qiimeeyo jirka iyo lacagta waad ogsoontihiin ilaahay inaanu eegaynin muuqaalka qofka iyo xoolihiisa ilaahay ma eego maxaa wax muuqaalkan ayaa ku sii isaga ku sii muxuu ka eegayaa lacagtan isaga ku sii birin uu ka qaadi kara waa imtixaan ilaahay ma eego ilaahay laakiin muxuu eegaa wuxuu eegaa qalbiyaalkiina iyo camalkiina ilaahay eegaya xadiis saxiix qofka marka islaamka ah muslimka ah waxa lagu qiimeeyaa waxa waaye quruxdiisa laguma qiimeeyo annaga laakiin fiiri labadii ilaahay uusan eegaynin ayaan waqtigeeni oo dhan siinay oo aan ku beerdarayna ilaahan kugu dhaariyay dukaamada make ups markaa fiirisid iyo business markaa fiirisid waxa weeyaan xoolihii oo dhan yaa loo sameeyay haweenka loo sameeyay waxa waaye gabadhii wax kale kama fikirayso waxay ka fikiraysaa waqtigeedii oo dhan ay siinaysaa ama meesaskeedii guryaheedii buuxa waa un jirkeeda wixii ay saari lahayd waxaasoo dhanna waxa weeyaan ilaahay ma eegayo waadna ogsoon tahay gabar yahay addoontii allah maalinka aad dhimatid wixii aad ku tacbi jirtay ee xoolahaagii oo dhan aad ku bixisay dhar iyo wixii oo dhan iyo dahab way ka haraayaan jirkaagan aad sii qurxisay aad sii buurisay ama wiilku uu ma aragtaa sidoo jimi balay u ciyaarayay isdaaxuurinay murqaha waaweyn habeenka ugu horeeya yaa lagu sooriyeynayaa aboor ba iskale adigu waxba kuma lihid that's why aan ulaahay ilaahay ma eegayo habeenka ugu horeeyba aboor ba cunaya wax ka soo qaad ma laha muxuu ku qiimeeyaa shay marka qofka muslimka Abdullah ibn Mas'ud lugtiisa ay qiimo ku yeelatay waa amalka waqtigiisana aad u ilaalin jiray isaga wuxuu leeyahay wallahi u dhaaranaya anigu noo sheegaya wallahi ma nadimtu ala shay'in kanadami ala yawmin gharabat shamsuhu qalla fihi ajali wa lam yazid fihi amali ya salam والله دار بمرايا إسقونا دار أباهنا ابن مسعود وحوليه رضي الله عنه والله أجمع أنا شلينين ولقي سيدان أجشلاي دقيقة يرو إضافتي يعني مال قبل كيسو دعي عمري جيجين وصير هذي وأنا إلهي أكتيس عمل في عن أنا أكرر سنين يعني دقيقة إضافتي دقيقة دس هديسن عمل في عن هدانا صمينين إلا دقيقة ده موقته وعمري جين ويصومها أنا ما حنك سمي سنة وعن كسمي سنة دقيقة وعن كسمي سنة ساعة مالمو أسبوعيو بلوين سنوين انت سويا جيركين وحاسوك كوبينيا وعمرييني وقتي أنكو عيارين وعمرييني بان عنينا قفك إنو قرم يسوى ما هذا نارك ويلكي يرى دالين يرى قرحونا دبنا ذكو كوسنا واكن حوغا كدب واب إساقو صويرا ما عرك تاجيركو صوير أتكانا يو واك إساقو صوير عريسانا يو واك إساقو صوى ننكي دم يعني محا قري ننكن وقتها قراية شن سنة كور دالين يرى دالين قاني ما انتوا أنا الله يابن مقال كود يقولوا إليه أبيهين ورمحانا هلي محانا بدلي دقيقة ذا إساعة ذا وكو عن لمنين ويان وقتي قراية محادو قري لا ذا هي أدية
maxaad u qori laadahay inaad qortid baa loo baahan yahay inta adi aysan ku qorin. ayib cabdullahi ibn mascuud marka wuxuu leeyahay daqiiqadaa i dhaaftay ee cimrigayga ka go-an haddaanan ilaahay xaggii aanan u soconin, camal fiican aanan ma aragtaa ee aanan samaysanin, waatan aan ka shallaayuu leeyahay. waana runo wallahi ninka adduunkan daqiiqad dhaaftay ka shallaaya waa ninka badbaadaya maalinka qiyaamaha ah. laakiin ninka aanan ogeyn saacadaha dhaafay, daqiiqada kuma xisaabtamayna, saacadaha dhaafay, maalmaha dhaafay, usbuucyada, bilooyinka, sanooyinka, qofka aanan ogeyn waa kan maalinka qiyaamaha khasaaraya, waa kan maalinka qiyaamaha ma aragtaa shallaynaya, maalin shallay uusan waxba taraynin. walaalayaal, cabdullaahi bin mascuud markuu sidaa yidhi, teeda kale waxaad ogaataan waa walboo noo dhasha wuu nala hadlaa. soo idinma oran insaan waxaan nahay qiimi badan markuu ilaahay nagu qalabeeyey xubnahan qiimiga badan oo midoodna aynan siisanaynin adduunka iyo waxa saaran. qofkeenna ma ogola il ha lagaa rido ha lagu siiyo islii oo dhan oo dahab ah ishaada ku bedelo, wallahi inayna ogolayn. nin baa ayaan dhexdaasa wuxuu yiri wiil baa u dhashay 3 jir isagoo ah dhagoolanimo ku dhashay, markaasaa qaahiro igala soo hadlay, wuxuu yiri isoo raadi qowqacada yani bahal yar oo dhegta la geliy, wiilka dhagoole wax ma maqlaayo, dheg isoo raadi. dhakhaatiir badan baa maray dhegta oo weliba lafta la qalayo oo wax la gelinayo oo sidii la rabin uusan u maqlaynin, mar walbana laga yaabo in la bedelo, ayaa waxaa la yidhi taqriiban $70,000 $60,000 ama $65,000. yani fiiri dhegaha qiimigooda markaasaad garanaysaa. dhegaha ilaahay bilaash buu kuu siiyey, indhahaas bilaash buu wax walba uu kuu siiyey, keliya maxaa lagu yidhi inaad wax ku maqashid inaad wax ku aragtid, maya xaqa inaad ku aragtid, xaqa inaad ku maqashid, xaqa inaad ku weelaysid. rasuulku wuxuu leeyahay attaqwa haahunaa, cayaar ma aha xubnaha idinku jiro walaalayaal ee aad ka faa'iidaysan laadihiin intiina badan ilaa man raxim. attaqwa haahunaa, maalinka qiyaamahan waad ogsoontihin yaa badbaadaaya. yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalin xoolaha aan waktigeena ku dhuminay aysan anficaynin, awlaad aysan anficaynin, yaana anfacaya, waxaana anfacaya waa qalbi saliim ah inaan la tagno. qalbi ilaahay yaqaana. waa maxay qalbi saliim ah? waa qalbi ilaahay yaqaana, waa qalbi adduunkan waktigiisii ka faa'iidaystay, waa qalbi daa'iman xusuusan qiyaamaha xusuusan weeyaan. raaliga ahda codka haddaan idinku dheereeyey soo ma idan garan walaalayaal. maalinku wuu hadlaa, wuxuu yidhaahdaa ya bna aadam ana khalqun jadiid, waa walboo berya. ya bna aadam ana khalqun jadiid وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ilmihii aadamow anigu khalqi cusub baan ahay, waa walboo dhashay ogaada, khalqi cusub ayaan ahay anigu. isniintu waa maalin cusub, anigu isniin waa inoo isniintii hore iyo tan waxba nooma kala duwanaa, laakiin waxaad ogaataan waa walboo berya, maalin walboo cusub waa maalin cusub, waa khalqi ilaahay, maalmaha ilaahay baa abuuray. waa anagoo kale, anaa khalqun jadiid, haddaan imid ilaahay agtiisaana ka imid, anaa khalqun jadiid. oo maxaad u timid? isniin yahay maxaad u timid? arbaco yahay maxaad u timid? jimco yahay maxaad u timid? wacalaa camalika shahiid, wax aad samaynaysid ayaan eegayaa. fiiri hadda xubnaha ku ilaalinayay soo ma ahayn, indhaha ku ilaalinayay, maqaarkaa ku ilaalinayay, gacmihii baa ku ilaalinayay, maalinkiina waa kana. bal fiiri inta ilaalay ina saaran midkeena ka warqaba. maalinku waa 24 saac, saacadda ugu horeysa ilaa saacadda ugu dambaysa waxay ku leedahay wa calaa camalika shahiid. afkaaga wax ka soo baxa, xubnahaaga waxa ay qabtaanaan eegayaa. faqtanimnii, iga faa'iidaysta, iga faa'iidaysta. waa maxay 24 saaci maanta wax wanaagsan sameeya, cimrigiina inay ka go-an tahay, wax aakhira aad ku badbaadaan, jannadii idin geeya, ilaahay idinku jeclaada, ay samaysta.
أفر لواتن كساعد وقدام بيس مرك عمري مالك عمري سو أفر لواتن ساعة دقيقة وقدام بيس وحيله وان تجايا حقي تجيسا إلهي أكتيسي تجيسا فإني لا أعود إلى يوم القيامة إلى إيمانك قيامها نمسوا لا بناي شلي وي بحذي وحي أن سميني أردنا ويلا بحذي أوجادا ورصدا أفرن صبحي markaad soo kacdid wax walbo aad sheegtid ilaa iyo waqti ugu dambeeya halkaas ay ku ridatay xumaan iyo samaan boorsadii bay xiratay ilaahay agtiisay tagtay keen ugu yar maanta wuxuu jiraa 16 sano 17 sano qalinka 2 sano ama 3 sano ku socday imisa maalin weeyaan marka ilaahay baan ku dhaariyay imisa maalin baa boorsadu xirxiran yihiin ma se ogsoon tahay saaka subaxii saacadii ugu horeysay aad soo kacday hadalladii aad tiri maanta ma ogsoon tahay wixii ahaayeen إلهي رالي ما كأها مسك ما أنا أهين متى هاي واحد جنبي كجينا يا مسوح عذاب كجينا يويان شل إسكاب الدابة كأن حصوصا شل وحكوا هذا القي أو يري عكت هذا ماشي أي مرتي جعنت هذا واحد تابتي شل مؤكسوني إسكاب راف سنوين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله مالك خلائق ضدنا ليسوا كنا وإلهي وشيء يقفك ويسمى إلهي بان حسوسنا إنه شيء جاية إلهي وكوبي مالك قالك وكوب باللوضي إلا إيمانك أبدي متي إلهي وكوبي أعماش هذه يجينا ويحل مامين ورسومينا هل مامين شالوا وحي أنا صميني دربني أن حسوسنا سنة كهر إسكاب الدابة ما دام هالمان كانوا دوية إنسان آنو نهي محلو بهن يهي كل هو إلا وينا إلهي أكتسنا لقم إلا ويه إن أن كنترول نوامحي أفكينا وحكا صوبحايا إشينا وح أي أركيسا دكتين وح أي مقليسا قعموه وحي قبانيان لقوه وحي قبانيان إن أن كنترولنا لو بهن صوما ولا ليال وقتي وقيمي بدنيه وقتي إلهي نسيه هرت أنكم هذينه وقتي أنا إنه كفا إذا سنه لكن سأوقف إذا سننا وقتي وحد أوقاتان ابن القيم رحمه الله وحوليه دارها إلهي وحكي لي سدح دار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة دارها واسدح توبتن كحكتا ويكسي دارتها ولا ليال دارتن الدنيا دا أقولو والله بسع يعني إذا الله بدنانين والله بسع والله واكيرتها وليبا يا داره واسدح دارت الدنيا كأغير وساعد أما الله بسع وحاكو حكتا دارته دار البرزخ النجا مركب فيري وحان دارتان وحنا لو كاني وامحي ساعدي لو ساعد وحين قطبة إن أن أبورنه عافمات بيرت أن أبورنه حكيم كو قوسانينا قيامة كو قوسانينا واللي بقبرك أقوه رأيه كو قوسانينا نبي الله آدم وواقع بنت عليه السلام إلا إيه حد قبرك وكو جراد دارت وادر بضانتها لكن أركي ميسي قف نول واقع نبي الله آدم إلا إيه ما أنت نول مرها برزخ ويكدر تايتن ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلا دركي سوا أنت إلهي بأن تكون دارية دارت برزخ ما أنت يا كورهم لأن يردين سميه كشيء كيستا دت كان وقت قد ضيعايا لأن يردو كليا ما هي أنا قو دنبا مساجد ده كنت كنينا مركب وقت قال قدموا وحواي سيدي وحن ورورينا ما أركتا جيل أومن وانو تقني مركان كسب بحنا وهذا ركتي مساجد هواينك ما مري كران باورتي ما مري كران واحد الزحمة مساجد هرتوض وهذا ركتان هل كسل لو تاجينه ورمع لو تاجينه عشر بالسجايا إمس ساعة بوضع عيس دورك عصرك مغربك أنت أصل ساعة مع وقتك الله بمنايا ما لا شقيه ما آخر الله شقيه أنت هدنا وحكي لله مش شقيه وح أفكار كصوب حينا وحوا إلهي بقى بحالة دور وقتي ولا ليال أدب مهم وياهي لابد ساعة أدون كأينو جوبنو أيها وحلو باهن ياهي إن أن investment كسمينو إن أن بدينو إن إنه خير بدناته يعني عمري جاي يرأي ساعة ضحى كم من سنة أو مالك قيامها أدقرتي هذا كلام أدون كان إلهي بكو دياريين ودكسونتين قديين فردقان ما أنت فردقان إلهي بيدين دياريين واجي أوركو يدين أد كجرتين أفر بلاد أيال الذين قري وحي أدعوني لهيدين وقادتا وحي أدعبي لهيدين ماشي أدعبي لهيدين هو ذا أداركتان وحي أدكل هيدين يا أكسجين تتكقاضن لهيدين هيسكو دلنا أيال يري يا لوردن كتاب إلهي سود جيونا ميلو البواد اكتد أدونكو أردكو مطال إلهي وحي إليه فامشوا في مناكبها
warkaadsada huduu si tartiib ah asbaabta un la imaada ma aragtaa ilaahay baa idin diyaariyey socda daafaheeda socda oo tallaabada qaada war maxaa adduunka marka la isugu dilaayaa adduun inaan isku dilna maaha ilaahay baa tan qaadi maysid orod walbo aad orodid wax walbo aad jamcisid wallahi inaadan ka qaadaynin wixii ilaahay ku qoray maahane qofna nafsadna ma dhimanayso ilaa ay kaamil noqoto oo ay qaadato oo ay buuxsato oo ay wada cunto wixii loo qoray hawadii loo qoray biyihii loo qoray ilaa ay qaadato wallahi inaanay adduun ka tegaynin maxaan u ordaynaa maxaan ilaahay uga fogaanaynaa laakiin halka loo ordayay ee aan lagu diyaarinin waa halkee aakhiro weeyaan la socda aakhiro diyaar idin ma aha aakhiro lidinma ballan qaadin aakhiro lidinma diyaarinin aakhiro biyo aad cabtid kuuma yaal wallahi inaanay biyo kuu jirin guri kuu jirin geed kuu jirin ilaa adduunkan wixii adigu aad samaysatid maahan cimriga maxaa lagu siiyey caafimaadka lagu siiyey xubnaha lagu siiyey caqliga iyo ma aragtaa indhaha iyo dhegaha wixii oo dhan maxaa la isugu kaa rakibay mataqaanaan inaad halkaa u shaqaysatid weeyaan ilaahay markuu ka warramay aakhiro fiiri fastabiqu lkhayraat wasaaricuu ilaa magfirati min rabbikum wasaaricuu fastabiqu lkhayraat falyatanafasi lmutanaafisuun daa'iman dhaqtan ayaa laga cabiraa aabbaha inaad ka badisid baa lagaa rabaa aakhiro maxaa la fiiriyaa qofka kaa sarreeyaa la fiiriyaa qofka kaa orod badan ee aakhiro kaaga orod badan kaa salaad badan kaa cibaado badan waktiga ka faa'iidaysanaya kaasaa la eegaa laakiin adduunka ninka kaa hooseeya la fiiriyaa si wax aad haysatid aad ugu qanacdid walaalayaal abu dardaa saxaabiga jaliilka ah radia allahu canhu waa saxaabigii labaad maalin buu kacbada yimid isagii iyo saxaabadiisii markaasaa wuxuu yidhi intuu kacbada sidaa u fiiriyey ayuu iska ilmeeyey abu darda radia allahu canhu markaasaa wuxuu yidhi dad yahow marka aad safraysaan adduunka aad u safraysaan aad gobollada isaga kala gooshaysaan soo masahay qaadataan waxay yidhaahdeen haa abu darda wuxuu yidhi fasafaru laakhirati abcadu mima tusaafiruun daa'iman saxaabadu waxay ahaayeen dad xusuusiya ya aakhiro dad xusuusiya ilaahay dad xusuusiya gurigeeni miicaadka ah ee runta ahaa adduunyada kuma degdegi jirin waa 2 saac waa laga tagayaa adduunkan wuxuu yidhi safarka aakhiro ayaa ka dherer badan ilaahay baa ku dhaariyay safarka aakhiro wallahi waa dherer badan yahay nabiyullaahi aadam weli ma aanu gaarin waa sugayaa weli annaga maxaad u malaysaa adduunkan waa la marayaa addunya daaru mamarin wal aakhiratu daaru maqarrin aakhiratii nagaanshaha taa weeyaan ma nasanayna oo daalku naga bi'i maayo ilaa aakhira aan cagaha saarno adduunkan waa la marayaa horteenna waa la soo maray dadkii wanaagsanaa ee saxaabadii salafkeeni saalixa ahaa inaan ku dayano weeyaan maanta meel fiican bay ku sugan yihiin inaan ku dayanaa loo baahan yahay dad baa qudwo inoo ah hogaamiyaal inoo ah safarka aakhiro ayaa ka dherer badan wallahi saa ka dherer badan maanta dhalinyaradeennu kama sheekaystaan daartaan oo barzakha kama sheekaystaan ma ogsoontihiin barzakh walaalayaal wuxuu yahay saacadda sakaraadka uuna qabto ee adduunku inooga dhammaato malaa'igtu ay soo weydo mikaa'il uu soo waayo malakul irsaaq uu soo waayo neeftii aanu neefsan lahayn meel walba intuu maruu leeyahay maanta waa ku soo waayay oxygeenta waa hawadan iska ma aragtaa dee openka ah ayaa waxaa lagaaga soo waayay wixii aad qaadan lahayd neefsi aad neefsan lahayd maxaa wacay wax xadidan baad ku leedahay ogow talaabadaadii wuu ku soo waayey kuuma qorna looxul maxfuud inaad dhulka caga dhigtid cagtaada cid walboo qaado wallahi dhulka inaanay saari karin sariir baad ku urursatay jidinkaa waxaad marisid lama hayo maalinkaas adduunka aad ka tegaysid miyaanu isaga sheekaynaa maxaana qabsanaaya taransidka aanu marayna ilaa iyo qiyaamaha miyaan isaga sheekaynaa ilmaheenna miyaan uga sheekaynaa waa may ugama sheekayna maxaa wacay waalidiintiiba kuma baraarugsana dadkii oo dhan adduun ma aragtaa ilaahay u ballan qaaday bay ma aragtaa wayba ka orodbadiyeen ba ilaahay waqtigaas inaan dadka uga sheekayno dhalinyarada qalbigooda inaan ku abuurnaan rabnaa aakhiro rasuulku wuxuu leeyahay ilaawina haadimi ladhaat isaga sheekeeya akthiruu min dikri haadimi ladhaat almowt war ninkaa isaga sheekeeya ninkaa isagaa walaalayaal inaan baranno oo aan la saaxiibno daa'iman carabkeena uu ku badbato ayaanu doonaynaa si nolosheena ay u fiicnaato wallahi maalinkaas markaan ka tagna adduunka meesha kaleena la dhigayo waa halkee sakaraadka
ولا ليال رالنا هذا رنتي وقت كان سكرات كنا كشاكين ومبهني لكن وحويا سكرات ولا ليال ولحظة قف والباء إنسان أو إلهي أبوري نفسد قليي سوي سويان رسول كان صوب ودوك سنتين صلوات ربي وسلامه عليه أو عمري دنبي سيهور إكيد دنبي الضعفي صلى الله عليه وسلم ودوك سنتين ولا ليال وقت قبوه أيال لقى قاضي روح ذا أو إلهي الله قاضي عائشة رضي الله عنها كوهيسي لابتا هل كالابتا أي كوهيسي عائشة وحي ليدها وهين كروا يا رسول كان صوبا كليل كيسي وهين واي وديد يا رسول كان صوبا صلى الله عليه وسلم ديد با كسعدا بيا الله كاني بيها سوق عنتكو قاضيا أو اسكو قبوجنا يا صلى الله عليه وسلم مركاسو دواقا يا إلهي ببريا يا أوليا هي سبحان الله سبحان الله إن للموت سكرات إلهي با نزهن إلهي با سكرات قبنين إلهي با حنون قبنين إلهي با حميودان كنزهن موت كحوليه هي كليل موت كحوليه هي عليس موت كحوليه هي قبقبشو يا اللهم هون علي سكرات الموت رسولك المينايا رسولك كل رسولك بيوجهكم مسحنيا وخير خلق الله أنك محد مودان ولا ليال أو أدونك كبديني حمان أو وقتيني ضيعني رأس مالك إلهي نسيي سديتن كسنة سجاشن كسنة أن ما أركتا وحول بوحاراني حمان يا حلال أن وروريني أو وحول بأن كهضلني لوكتيني ماشي أن دقينا أين أكل أبي لين محض مليني سا لحظة داس واللحظة قفول باس ويسا قفول با إنه أوسع قاتا مركلو بهن ياي ما دام إلهي أوسع عداس ليه قفول با ومرايا أو نفسد اللي قاضايا سكرات كسو قبنايا وحوكو سيي كهر إنتاني كو إيمانين عمري عند الركبدن بوكو سيي عافيمات كان بوكو سيي إنها صحيح سو قادتد وتزودوا فإن خير زاد التقوى تنافع استاسويا صحيح معها هرب أن قادنا معها ولو بهاي آخر هرب ولو بهاي أو قبرك أنت أتكون جريسد واحد أنت ضبها انتهى والله واحد ضبها انتهى در أدحرتها ودبها انتين وهذا قبرك ودبها انتين واحد ضبها انتين واحد عنتان بدبها انتين قبرك دحديسة واحد عتان بدو باهنتين قبرك دحديسا جوجل بدو باهنتين قروح بدن وحرير او تكون راحيستان بدو باهنتين وحياوه مددالات بدو باهنتين لكن معها جارسلوج كما قادنين اوغادا يا waxa qabriga looga baahan yahay inta ma aha daar walba dhaqan bay leedahay daar walba sifo ay leedahay adduunka sifadiisu waa sifadan aan ku noolnahay laakiin aakhiro waxyaabo badan oo baahanahay waa maxay amalka wanaagsan weeyaan illa man ata Allah biqalbin والباقيات الصالحات وياه هذا المعان بطوبة أنت مسلم باتا يا إخواني هذا أدونك رسولك عليه الصلاة والسلام عليه هكذا جينا أدونك إلا إذنكو حسناتك أدعوني لهذين أباهن وتماهن صحيح إنا قادة تتبالو باهن ياهي ودكسونتي ودد دير ولا ليال نسوغيسا ودد دير وامحي مالك هو يدين أين هذا الشيء أيام باللوني سفر كدارت آخره وقادا واسعنا قفل باو صعدا قف والبابا دقيقتك سو دافت إلهي بأسي دوانيسا قاركين هو قاري قاركين هو صعدا أو ودو يهي إلو قارو ودو يهي مانتا صحت قارتي ما هذا كلام سفر كاس دارت آخره لنك كا قاضايا قف والبابا مالين بإرد الله سو قراعايا قلبي جينيانو مرنا وكبحين أكثروا من ذكر هادم اللذات أكثروا من ذكري هادم اللذات مرنا بقلبي جينو ولا لياني كبحين قلبي جاga saacad walbo aad soo kacdid mar walbo aad dhaqaaqdid aad fariisatid aad istaagtid in malku daba joogo marun aad dhimanaysid qalbigaaga hadaad gelisaan oo raasq ay ku noqoto aad xusuusataan wallahi afkiin wax xumaana inaanay ka soo bixin gacantiin wax xun qabaneen ishiin wax xun fiirineen dhagtiin wax xun idin ku maqleenin maxaa wacay qalbigaaga qoyan qiyaamaad ka fikiraysa marka iyada ah tada kalimada malakul maut markuu iridu ku soo garaaco oo ku yimaado hadda keenay diyaar waa ilaahay baad ku dhaariyay midkeena wallahi diyaar inaanu ahayn abadan qof diyaar u ah anigana allah ka dhigo wallahi inaanu jirin laakiin waxa way ilaahay wanaag baan ka rajaynaynaa ilaahay ma aragta waxaan ka rajaynaynaa dambi dhaaf aan ka rajaynaynaa aakhirana amal wanaagsan baan ka rajaynaynaa laakiin baska markuu guriga ku soo istaagay iridiisa baska waxa la yiraahdaa al-maut
magaalo marka u safraysid bas baa la raacaa soomaa waxaa la raacaa diyaarad waxaa la raacaa markab taran ayaa la raacaa laakiin aakhir intaasba looma raacay baska waxaa la yidhaahdaa almawt waxa darawalka ah yaa waay malakulmawt halkuu ku soconayaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yubcathuun wadadaa dherarka badan ayuu ku soconayaa walaalayaal safarkaas waa safar dherer badan waa safar haddaad isla gashaan hooyadii ku dhashay adduunka ku koolkoolin jirtay madaxa ku saari jirtay wax walbaba ku huri jirtay hadday kula saaran tahay wallahi galaas biya inaanay ku siinaynin xaqiiqada ogaada iyadaa cunaysa oodkaceeda iyo doolshadeeda iyo xalwadeeda inta ay sidato wallahi keligeed baa cunaysa inayna kubi ku siinaynin qof walba inuu sahay qaataa loo baahan yahay tazawad liladi laa budda minhu فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد أصحيق هذا كان لقى مارمانك قبرك لقليا أصحيق هذا رالي مياد كتاهي إن آد سفر لقشد أمت ألابطول أحر حرنتهي برسوين كود أبوحان وحل عبي وحل عنو أذوقون أفصحي لآن تهي وركيني راليكو قفنا راليك معها ولا ليال مركان تجينا هالكان أن يوروب آذينا waad ogsoontihiin daa'iman waxa waaye waxaan weydiinaa transitka war diyaaraddu halkeebay transit ku tahay magaalo hebla meeqa saaca la joogayaa wallaahi 3 saac 4 saac ma rabti 3 saac 4 saac yani dhibkaas yaraa diidaysaa wartanba waa weydiinaa oo transitka dhawaan weydiinaaye waa adduunyadii yareed ee hawadu furneed ee aad lacag siditay aad meel walba cagta dhigi kartay war aakhiro oo aan u soconno oo safarka dhabta ah maxaan transitkeeda u weydiin laanahay maxaan u weydiin laanahay halka aan marayno انت ما حتى انسي مرينا مع ويدين لا نهي والسكرات بان سوغايا قبري بان سوغايا سؤال بان سوغايا منكر نكير وحان سوغايا عذابكي اما نعيمكي جنة قبري ان سوغايا والله صباحيا حساب محشركي بان سوغايا ميزانكي صراطكي اما جنة واما النار فريق في الجنة وفريق في السعير انت صدقين لسيشاكي لو باهيا بلاش الهي وحوليه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ومن الدل إذن أبورنا دمودي هدي إلهي دل وكو أبوري لها إلهي وكان الزهاية هاي هدو كو أبوري لها دل قلبي قلايا إنا نذي في السنة لو باهي قلبي قاقا وحن إنا نقلن مرايد وكلويان وهلك أدون كان إلهي مخزن وكدقي وحاورنا لغو قريو مالك قيامها نسقون نظيفة كبت بهذه سدويان إيش هادو وحاي أركتوه تنهوري أضاس كلباليري لكن مد لوادياله قلبي قلايا مقصون تاري ما أنت مركان يريدان كبحنا واسكفير فيرنا ميل والبا لكن إيش وحي قبنا يسوى كامير ويدوب ساعجل كوا هلكا سال الروائن الإلهية دكت هذا واحد مغلي يسدو حال هذا أنهم يحفظنا أي واسكده يسنا هسك واحد ما مرها واسكده يستي دكت ما هو اسكده يستي قلبي وجود بايا آخرين واحد بايا إلا من أتى الله بقلب سليم قلبي قيمي بدن بات سيدتان ولا عليال قلبي إن تكفى إذا ستان كلن كان وكلن كيني وريي كل مو بدن واسقوا إيمان دونا هدو إلهي إدمو waxaan kusoo gabagabeynayaa luqmaanul xakiim daa'iman meelaha majaalista sidaan oo kala muxaadarooyinka ka socdaan dadka way wanaagsan saalixiinta la soco meelaha kitaabada laga akhrinayo goobaha ilaahay beedadka ilaahay meelaha culimada daa'iman ha ka fogaanin jilbaha waa inaad la gashaa buu leeyahay wiilkiisu la dardaarmaya annagana wuu nala dardaarmaya hooyada waa inay ku tiraahdaa wiilkaygiiyo culimada ha ka fogaanin maxaa wacay muxuu ku cileeyay fa inna allaha يحيي القلوب بكلماتهم قلبي يذا إلهي وحكونا ولا وهذا العلماء دائما ودح ليس قلبك صوماها كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون إلهي وحنو شيء قلبي إن يدح ليستان محاو عيش وحي أركت قلبي وقد بني بأيدين نكت مذوبة كل عيسى نكت وحي مغشه نكت مذوب إن مساحة دال روا حتى غافل آتها وآد هالمانتد أو مانتو دان وقتي كرافي آدن أوجين أو وحي ودن بأماركتا ومذوبانا يا هدوم مذوب هذا واحد مغلس الملء حراش وكو حاران تنوكو حلال وحول بيعني وكل وقت مركو حيري قلبي يدا وحن نوليا وكلمات كعلماء وهذا اللذوذ وفرقوذ بل علماء قالوا حيري هذا فيرين تقفت عالمك وجهي سلفيري وعباده مركو وجهي شيطانك ويهي مع السئيتاي إلهي قلبي يدو وحو نوليا sida roobku ugu nooleeyo dhulka roobku aragtay dhulka markuu abaar yahay markuu soo dego dhulka dhan sidoo noqonayo wuu shanqarayo wuu farxayo wuu dildilaacayo bihi baa galaya markiiba wuxuu soo dhalnay waa aragteen sidaas oo kale walaalayaal waxaan kula dardaarmayaa culimada inaydan ka fogaanin goobaha ilaahay inaydan ka fogaanin daa'iman dadka wanaagsan inaad dheehdaan
maxaa wacay kuwaasaa laga yaabaa jameecadaas wanaagsan ee solaxada aad dhehdeen darteed dembigiina ilaahay inuu ku hoobiyo in maaragtaa uu ilaahay ku islaaxiyo teeda kale safar ugu dambeeyo hadda Denmark aan tagay wallaahi suma wallaahi dhalinyarada badbaaday ya maxamed uu inoo sheekeen doonaa dhalinyarada badbaaday waxa weeyaan dhalinyarada ku xiran goobaha ilaahay masaajidada inta aan masaajidada ku xirneen khadkay ka baxeen walaalayaal intaas aan ku soo gabagabeynaya hadduu ilaahay yiraahdo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.